muxuu calaamad u yahay falanqayn iyo fikir ku aadan rabshadaha ka dhacaya magaalada Xamar ama magaalada Muqdisho ee dhex maraya ciidamada dawladda iyo ilaalada qayb ka mid ah mucaaradka ama siyaasiyiinta mucaaradka ah. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ku soo dhow barnaamijka. aad baan u dhawahay jazakallahu khayr. ugu horreyntii aan ku bilaabay ee rabshada iyo dagaalka ka dhacaya magaalada Muqdisho iminka maxay kula tahay sheekhana? alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. horta sheekh dulyadeynow waxay ila tahay intaan ka hadal waxay yihiin aan ka hadlo. muqdisho waa caasimadda dowladda Soomaaliyeed, waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed. muqdisho waa meel soo dhisantay oo qurux badnaatay, waa meel ay taalo maaragtay xoolaha iyo caqligii iyo siyaasaddii ummadda Soomaaliyeed ay taalo. marka meeshaasi waa meel ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan isha ay ku hayaan, jacayl bay isha ugu hayaan, naxariis bay isha ugu hayaan, rajo iyo mustaqbal bay isha ugu hayaan. marka jamhuuriyadda Soomaali federaalku dowladdii saddexaad baa abuurantay shirkii Carta kadib. waxaana lagu asaasay 3 shay oo asaasi ah oo arkaan u ah. waxaa rukni u ah dastuurkii in la ilaaliyo, waxaa rukniga labaad ahaa federaalnimada in la ilaaliyo, rukniga saddexaadna wuxuu ahaa 4.5 in la ilaaliyo. dowladda markaa sidaas ah oo la soo dhisayey waxaa lagu waday wax yar oo la dhaahdo ayr ha loo socdo quyar socod ha loo socdo. marka habeen hore xalay waxaan la soo shalay galabtii waxaan aragnay wax u eg 1990. waxaan aragnay qiiq iyo dab ololaya oo ka ololaya holac magaaladii korkeega. waxaan aragnay madaafiic dhacaysa, waxaan aragnay rasaas kala go' lahayn, waxaan aragnay qaxooti dad qaxaya oo barakacaya oo u badan dumar iyo caruur iyo dad waaweyn oo odayaal ah. suuraddaas waxaa la dhahdaa suura namatiya, waa suurad madaxeenna ku jiraysay 90-nadii madaxeenna ku jiraysay weyn. waa suuraddan ka soo gudubnay oon islahayn muqdisho kuma soo laabayso. tiibaa marka aan xalay yaan aragnay. arrinta labaad ee khatarta ahayd ee aan aragnay xalay toole waxay ahayd madax qaran oo uu ka mid yahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka oo sida ay u dhigayaan mucaaradku ay ka dhammaatay waqtigii xilaadkiisa ay dhammaatay. siduu isagoo u dhigayana uu leeyahay dastuur baa sameeyo ii biiriyey. madaxweynaha noocaasa ee xasan sheekh wuxuu isticmaalayaa ciidankii iyo hubkii dowladda, wuxuu ku isticmaalay caasimaddii waddanka. suurad foolxun weeye. dhinaca kaleeto mucaaradkii oo iyakuna ah saamboolada madaxdii dalka, sheekh shariif amba xasan sheekh oo xasan cali khayr oo soo maray ra'iisul wasaare soo maray iyo kuwa kaleeto fara badanbaba waxaa iyadana dhacay ugaasyo iyo salaatiin iyagoo guriyihii ku dhex jira ayaa la weeraray. iyakiina way isdifaaceen. waxaanad maqlaysay hanjabaad laba dhan ka imanaysa. dowladdu waxay leedahay waa soo afxidhaynaa waxa loo yaqaano caskaratul caasima, in ciidamo la keentay caasimaddii. amba waxay u bixisay dowladdu siyaasadda la ciidameeyey. mudaharaad lama jeedee waa la ciidameeyey siyaasadda. waa waxa iyakuna mucaaradku ay leeyihiin hubkii iyo dowladdii awooddeedii baa loo isticmaalay in lagu laayo mucaaradka iyo dadkii siyaasiyiintii waaweyneed. marka in luqadaasi ay ka bilaabanta muqdisho oo markuu madaxweynuhu waa soo afjarina idhahdo madaxweyne shariifna u idhaahdo hal rasaasta haddii laygu soo rido macnay leedahay waan ka jawaabay anigu mana aqbali doono ya mana ordayno mana baxsanayno. marka hanjabaadda noocaas ah waxay abuuraysaa waxa loo yaqaano atawatur asiyaasi, inay siyaasaddu karsanto. waxaa loo yaqaano alixtiraaq asiyaasi, inay siyaasaddu olosho. waxaa loo yaqaano alidtiraabaat asiyaasiya, inay siyaasaddu gasho maaragtay isku dhac. marka aniga waxaan arkayaa in laga baxay marxaladii ahayd siyaasaddii wada sheekaysigii oo loo baxay kacan ka hadal.
ayaa iminka loo baxay arrinta labaad aan arkaya waxa weeyaan in la isticmaalayo awood power oo powerkii uu isticmaalayay madaxweynuhu kii dowladda ayakuna isticmaalayaan powerkii shacabka way leeyihiin kama power yeelin markaasi waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa in aan lagu laami karo maa qabla dowladdan la dhisay ka hor suurtagal bay tahay lagu laami karo marka imkaaniyaadku way kala badanta waa sheegi doonaa laakiin halkaasaan waxaa ma arkaya anugu gartay laakiin sheekhana wax walba waxbaa sababo dhibaatadan maxaa sababay oo sabab u ah bay kula tahay waxaa sababay shashi number one waxaa sababay madaxweyne xasan sheekh oo u dhaqmaya sidii madaxweyne dictatora tallaabuu soo qaaday hore baarlamanku afduubay dadku taasi waa inay dareemaan labo dastuurkiibuu afduubay uu dejistay saddex uu biirsaday muddadii kororsaday isaga iyo baarlamankiisiiba isagiisa u kororsaday afar uu iska dhaga tiray baaqa mucaaradka shan wuxuu iska dhaga tiray baaqa dadka la leh sahmiga siyaasadda oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedadii iyo hogaamiyaashii intaba uu iska dhaga tiray sababta waa middaas weeyaan midda labaad waxa weeyaan sababtu waa sabab ka imanaysa dibadda sababta dibadda ka imanaysa waa maxay waa talo gaar ahaan Uganda iyo Djibouti uga imanaysa Xasan Sheekh oo lagula talinayo in magaalada haddaad qabsatid waxa kale macno male dowladdu waxay leeyihiin waa magaalo madaxda martaa haysatana waxa kale ignore garay madaxweynaha Uganda wuxuu yiri anu markaan afgembiga sameeyay ee wadankan aan qabtay caasimadan qabtay kadib dalkan ku fiday talaabadan uu maanta sameeynayo Xasan Sheekh Ismaaciil Cumar Geele wuxuu sameeyay 5 sano ka hor oo caasimadda Djibouti ku sameeyay reer duca sameysanayo weeraray oo sidan oo kale loo weeraro digandii laga dhigay isagoo loo jeeday in siyaasiyiinta la weeraro oo hadii wadanka laga cabsiyo ayaanta kadib waxaa dhacday waxa la yiraahdo الخوف العظيم في جيبوتي عبسي وين بعد رجل تكون عاد ما شاء الله لودي وهذا اصنع الخافة الإخافة سمع عبسي أرجع حقلي دي بدك إيمان ساتر هذا أريد السطحات سوت أنه قني سوا حويان بدك معارض كأه سياسي كأه أو أن دجال كوجو ونجارسي سنين مرسر مركيوري oo aanan u dagaalamin sidii markii farmaajo loola dagaalamay mid lamid ah way ka hooseysay caamil baa maqnaa ficlan marka taasina waa midda saddexaad weeyaan midda afraad ee keeni karta waxa weeyaan sababta weyn maarata arintani abuuraysa waxa weeyaan Xasan Sheekh iyo dowladda waxaa ka dhaadhacday laba shay oo muhiim ah kow dadka in badan lacaga la siiyaa waa la hayaa dadka in badanna waa laga cabsiyaa bayna alrajaa'i walkhawf xukun baa ka dhalanaya tiina u dabaqay arrinta ugu dambaysa waxa weeyaan waxaa ahayd tajribo jarib lidaalika culummadu waxay dhahaan siyaasadda qawaacidda siyaasadda waxaa ka mid a ninka siyaasigii muqaamaro waa inuu sameeyo marka qaarkood maaha muqaamir ma ciyaaro khamaar waa inaad iska jiidhid waxa muqaamaradaas hadday ku hirgashana waad guulaysatay hadday ku hirgeli weydana iska soo laaban isbedel marka uu isku daya waxaa isku day siyaasiya oo indhala waa sababta keensanaysa weeyaan marka asbaabahaas baa keensanaya inuu Xasan Sheekh iyo dowladda iyo waxaan maanta dhacay ay dhacaan oo magaaladii Muqdisho ay u muuqato magaalo maaragtay qazo oo kale taa ay u muuqato marka asbaabta baa keensanaysa malasii qiyaasi kari waxaan xasuustaa waraysiga dheeraa ee Fahad Yaasiin uu siiyey geed fadhi laftirkiisu wuxuu ku sheegay in uu Xasan Sheekh bilaabi doono dagaalka saan hadda maanta wuxuu dhacayna suurad noocaas uu bixiyey marka relationship ka dhaxay malasii wax la sii qiyaasi kari miyay dhaqanka Xasan inuu waxaan suubin doono ama ku bilaabo asagoo uu bilaabi doono waa saddex shay baa muujinay inuu bilaabi doono caasimadda hareerihiisuna ma soo xidhay ciidamo lagu soo xidhay ninkan inuu caasimadda ayaa ka muuqatay talooyinkii dowladaha dariska qaar ka midana waa la ogaa gartay arrinta labaad ee la sii arkayay waxay ahayd in uu sameeyey uu ku dhaartay inay doorasho dhacayso qof iyo coda oonan loo joogsanayn loo joojin maayo khalaas
arrintaasina way ka caddayd arrinta saddexaad ee ka caddayd waxa weeyaan inuu gobolladii uu tago uu dagaalka ka eryaday raggii maamulka hayay inuu u diray rag maamulka usoo qabta marka labadaa haddii lagu guulaysto wuxuu bilaabayey inuu yidhaahdo puntland iyo jubbana waan ku xigsinaya baasha way dhaqaaqday tareenkii waa uu dhaqaaqay wax badan baa u suuragalay marka waxaas buu isagu isku hadleeyey taas daraaddeed baa keensatay oo loo yidhi dadka indhaya siyaasadda ay lahaayeen xasan rasaas uu ridi doonaa okay fahad yaasiin baa saa sheegay soo maha so annaka 2 sano ka hor kumaan oran xasan wuxuu ku celin doonaa 90 hadduu doono wadanka ku celinaya oo rag badan oo xasan la jooga ay la soo hadleen waxaas wax dhici karaya maaha okay aniga waan ogahay haddii jawaabta hayaan kuwii kusoo wici jiray waxna in ayna dhici kari waan ogaho xamar baa taa dhaafto waan sheegi doonaa laakiin isagu rabaa maxaa yeelay Aydiid iyo Cali Mahdi laba reer oo waaweyn oo hawiye isdiray laakiin maanta waxa isdiraya waa reer hoose oo hawiye ya habka isku haysta waa reerka xasan iyo shariifku hal reer ah halka hoose ku si kala baxaan laakiin halka turka hal reer yihiin marka laga yimaado maartay anu ma jeena qabiilka sheegay laakiin hal reer yihiin Soomaa maanta iyuu la dagaalamaya xasan waa qabiilkiisa oo la dagaalamaya reerkiisa oo dagaalamaya meesha uu ku dagaalamaya waa caasimadiisii uu ku koray uu wax ku bartay wuxuu ku dagaalamayo waxa uu hubka u soo qaatayna waxa weeyaan odayaashiisii oo la fadhiyay shariifka waliba odayaal ugaasi ismi iyo odayaashii wadanka culusaa dhinaca kaleeto xasan khayr ayaa la fadhiyay ugaaskii baa la fadhiyay reerka waxaa la fadhiyay ninkii baarlamaankii reerka la fadhiyay yani reerkii oo dhan baa ku dhannaa marka aad weerartay xasan aad weerartay waxaad weerartay waa reerkii okay ma khalad baa ku jira inay kacaan ay tagaan xaafado kaleeto oo istiraatiijiyadii berigii loo sameeyey farmaajo lagu afgembinayay in isagana loo dhigo oo xaafadinta laga soo baxo cabdilcasiis xafdalaadiyo iyo maaragtay la yimaado oo halis la geliyo isaguna warkaa u hayay wuxuu ku leeyahay التجربة فيه أنا كابضا ديناهد خبرتي أن أوغا يقوم ديني كرتان بركا إني لكن جوران أي حافظة كله جوران ورتوا حق دستوري صح إني إلى لدو الله صعتنا وحق دستوري لكن يسوي محوكة حركة ما شطر ويقول لي وحوكة حركة إني أفجم بوذان بركا واتقنا لقطة إن سياسيين واتقنا لقطة السياسيين توحويان afgembi baa la waday anigu waxaan maanta ilaa xalay macluumaad waa inaan helo mogtahay information baan xamar baa intaa telefoon aan haysaday waxa yaab leh waxa weeyaan waxaan ilaalinayay inaan la hadlo 3 qolo inaan la hadlo kuwa dowladda u dhow inaan la hadlo kuwa mucaaradka u dhow inaan la hadlo ragga muxaadiriinta dhexaadka kuwa dowladda u dhow waxay ku hadlayaan afka dowladda waxay ku arrintu waa la soo afjaray xasan caawana waxa la afjaraya shariifka arrintu waa dhamaanaysaa kuwa mucaaradkan waxay ku leeyihiin waratu waa dhamaato Yurub iyo Mareykan iyo Turkiga soo galo miiska lagu soo laamaya ninka waa baqbaqlo waxaan dhageysan kuwa mucaaradka in cod ku dhow kuwa dhexaadkuna waxay ku leeyihiin Sheekh Cabdiraxmaan oo arintu ma fududo laakiin wuxuu xasan doonayna ma soconayso say mucaaradku doonayaana ma soconayso si saddexaad baa socon doonta sidana waan soo baaro sheegi doona insha Allah taala dhexdaan soo imaameen gartay sheekhana مثلا مجتمع الدولي مثلا maxay xal soo bandhigeen iyaga la tirkooda ma la maqlay baaqoodii iyo talooyinkii ay soo jeedinayeen horta mujtamaca dawligii wuxuu kala baxaa 5 Mareykan waa kaligiiso Yurub waa dhinac haddana waxaa jira British iyo Talyaani oo dhinac يكون أود بيليهن وحا مركا مجتمع الدولي كميدا جمعية قرما كدحيسا iyo hay-adahayga waxaa kamid ah dawladaha Scandinavia yes waliba qaybta aad tiri Britishka iyo Talyaaniga oo xoog leh malafka Soomaaliya ayagu hoos yimaada okay intuba way soo saareen saakaba maxaan ku dhahdaa waxay soo saareen bayaanaadkoodii bayaanka ugu adag ee ka soo baxay waa bayaanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa gartay
bayaankaas wuxuu muujinayaa in ay halis tahay haddii dagaalku socdo in dadka dagaalka sii wada loo xambaari doono inay yihiin mujrimi xarb. maraykanku wuxuu ka digay in dagaalka la joojiyo, miiska lagu soo laamo, alfaadda iyo kelimaadka la isticmaalayna waxa weeyaan madaxweynihii taladu ay ka dhamaatay oo madaxweynaha ama madaxweynaha talada sii haya iyo mucaaradku waa inay sheekaystaan. talada sii haya madaxweyne lagama soo qaaday, madaxweynaha talada sii gaarsiinaya iyo mucaaradku waa inay sheekaystaan. miiska waa lagu soo laamo, la yeeli waaye, magaalada waa niga tagaynaa. adduunku sidii hore ma aha. eeg waan niga guurinaa. okay, cunaqabatayna way jiri doontaan oo dhinaca safarka safarada iyo xogaag yara waddanada Scandinavigu si wax u soo farageliyeen si positive ah. oo Norway oo kale waxay dhahdeen ninkan xasan faraha laga qaado, waa nin Norwegian xasan cali khayre. arrintana waan dhammaynaynaa, laakiin iyagu waxay yaqaanaan ay ku takhasuseen dhammaynta solutionada isku dhaca xalalkii ku takhasuseen baba. xasan sheekhna xasan cali khayrna waxaa muuqato inay si gooni u ilaashanayaan. waa inaan ka weyn idan الرجل يأوي إلى ركن شديد. waa muhiim jiddan arrimahaas. waxaa kaleeto oo maaragtay igaadku way hadleen, jaamacadda carabtu way hadashay. waxaa kale oo mujtamaca dawliga ah si khatar u soo dhaadhacay waa Turkiga. turkiga waxaa maanta jooga magaalada muqdisho الرجل الثاني في المخابرات. ninka labaad ee sirdoonka. ninkaasi wuxuu u yimiday in uu laba arrimood xaliyo. kow, in uu u sheego madaxweyne xasan sheekh hubka dowladda turkiga shicibka soomaalida laguma layn karo. cadowtinimo turkigu ma qaadi karo. beritoole turkigu wuxuu doonayaa inuu shicibka soomaalida saaxiib la sii ahaado. iyo mid mucaaradkan kamida baa beri madaxweyne meeshan wuxuu noqon karo. xasan waqtigiisa waa dhamay, wuxuu gabagabo. taasi waa in loo sheego. arrinta labaad waxaa ka galay wadanka dhaqaalo weyn u ismiqiiqay jarmalku turkigu. marka petrol iyo gasbaar iyo lacag iyo xoolo geliyey iyo maaragtay kalluun iyo maaragtay malay. ma rabo marka in arrimahaasi fashilmaan. waxaan war hayaa meel dhow aan ka helay haddii uu ninkan labaadi fashilmuu xallin waayo Ibrahim Galan baa imanaya, ninka ugu sarreeya mukhaabaraadka ayaa imanaya. marka turkigu arrintan waxay u sheegaysaa waa arrin weyn oo culus bay u tahay. marka mujtamaca dawligu way hadleen. hadalkoogu waa saddex mustawo. mustawo turkiga oo fal ah, waa mustawo kaas waa ficil asagu, waa ficil muqdisho dhex taagay. mustawo hanjabaad ah, waa jabhadda qurumaha, waa maraykanka, waa midowga reer Yurub. luqad hanjabaad ah oo ilaaliya waxaad noqonaysiin criminal. waa nooc min hanjabaad. dagaal. mustawo saddexaad baa jira, waa mustawo siyaasi ah, waa dowladda Scandinaviga iyo jaamacadda carabta iyo nabadda ha la ilaaliyo, dhulka wixii luqadii caadiga ahayd. laakiin waa softiga. laakiin Scandinavigu tallaabooyin softiga la socda. kuwan carabta iyo iska hadlayaan iyo muslimiinta iska hadlayaan, laakiin kani waa softiga. waxaa la socda shaqaa la socda. marka shaqaa bilaamaysa imikada degdega. miiska marka la fadhiisto iyakaa iman doona, waxay keeni doonaan siyaalada loo heshiiyo, sida wax loo xaliyo, waxaasoo dhan bay keeni doonaan. marka saasaa bilaabatay. gartay. dhinaca kale waxaa dadku isweydiinayaanay la yaaban yihiin, ninkan muddadiisu dhamaatay hadda ee xasan sheekh maxamuud muxuu isku hadlaynayaa? okay, horta xasan sheekh muxuu isku hadlaynayaa? wax weyn buu isku hadlaynayaa. xasan sheekh wuxuu horta ma ogtahay wuxuu sameeyey 3 tallaabo waaweyn oo inaad fahnaa. tallaabadii la oran jiray dadkicinta uu kiciyey maaragtay dadka uu barakiciyey. tallaabada maxay mataqaanaa? tallaabo uu kaga hortegayay mudaharaad waaweyn inay xamar ka dhacaan. boosaska iyo guryaha keli looma jeedin, istaraatiijiyada ku jirta. istaraatiijiyada ku jirta maxay tahay istaraatiijiyada? istaraatiijiyada ku jirta waxa weeyaan dadkani waa dad shaqaysta, waa dad degan, waa dad xoolo leh, waa dad xamar, dad boqolkiiba boqolna hawiye maaha, waa ummadda kaleeto dhan bay kuwada kooban yihiin. marka dadka waa in la farakiciyo. wuxuu idhaahdaa Aristotle wuxuu idhaahdaa mujtamaca laba shay weysii wad xukumi.
okay risiqa weysiyo ku yaree wuxuu ka fikiri quuta yowmihi waa busy ba asagii baba struggle ku cabsi geli halkan wuxuu ka fikiri amaan labada qofku hadduu waayo amaan hadduu waayo iyo hadduu waayo cunto الخوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هدوا وايو محول لا تقانا وضحكم كريسا marka taabo dhigay istaraatiijiyad baahi dhab ah haysa qofka yaa haysa gartay marka dadkii la barakicinayay iyaga waxaan mudaharad weyn u dhici lahayd taaba kamid ah ilaa dadkana waa boqolaal kuma ahayn good boqolaalka kuma soo bixi lahaa iman lahaa meesha صح mashquul bi maanta yihiin TV ku jiraan taasi waa midda u wadayadan cool midda labaad ee uu cabsoon lahayaa waxa weeyaan lacag badan buu urursaday xoolo badan buu urursaday madaxweyne geelana wuxuu ku yidhi afrika waxaa xakuma man yamlik akthar yaxkum akthar adwal man yaxkum akthar yaxkum adwal qofka in badan xakuma qofka in badan urursada in badan buu xukumi karaa in dheer buu xukumi karaa in dheer waxaan anu mari la sheekaystay nin baa beri Ethiopia nooga yimid gartay waa sheekeero cajiiba qaraabana waxaan dhan ka nahay dhanna madaxweynaha qaraabo ka yihiin gartay wuxuu yidhi war madaxweynahan u imid waxbaan ka dooratay ninka waa siyaasi ah madaxweyne wuxuu iga yidhi buu yidhi waxaan waan kuu soo diri qof aad ku kalsoon tahay u soo diro marka waxaan ka yidhi buu yidhi waxaan kuu soo diray Cabdiraxmaan Bashiir anaa markaa u tagay marka waxyar buu igu soo dhiibay kelmadu markaa iga yidhi wuxuu yidhi war tolkeen siyaasadda inay galaan bay rabaan iyagoo gaajoonaya siyaasaddu waa loo lacag urursadaa markaa galayso isdiyaari macnaha أفهمت سماه gartay عقل مركا إسماعيل استجل لما هل لنا قرى أنه إلى لي fariin buu sii هذا يقول دع الستات دون سنة هذا كشيء وانكم أغلبه كله ما يفهم يسمعها كله yes سفيا مركا استجل فلسفة وأميسية إسماعيل وش يعني نيك وحويان محول مركي هرس حسن شيخ يا مركو كسر ده محول نيك أي كلمته كسر نقولي معاهد Soomaali heshiisa ماي وحقيقة لا مارتي tareen ما يترين ما هين كلمة باجر سوي هذا يعني وحبا يقصن qabyo ninkeeda dhameystir قبيل نيك يقدر ما يستر qabyo ninkeeda dhameystir قبيل معاهد mashruuc baa u socday مشروع ابو اسماعيل تصي قبيل لو دميني بليون ربو نقدي مك حولها يا لكن حالي مرة تحليل رجل سميني waxaan ku yiri dadku Soomaalidu qofka siyaasiga waxay kula joogaan saddex waxay kula joogaan cabsi maslaxad qabiil saddex bas mabda ma jiro Soomaalida badidooda sida Soomaa cabsida waxaa lagula joogi inta dawladda haysid imika maxaa bilaabay tareek waa laga dhacama dadkii way ka soo ninna ma ka cabsoonay imika rag badan baa xalay toolba ku soo biirayay shariifka ciidankiisa ku soo biirayay cabsidu way dhamaataa maslaxaduna inta aad maslaxada qaybinaysid lacagta waa lagula joogayaa laakiin marka adigu aad istiraahdid war lacagta iska dhameynta waa taa maaratay lagaa badiye maslaxaduna waqti bay leedahay qabiilkuna waa basal oo fiiqma marka saddexdiiba waxaad arkaysaa maanta inay xasan iyo dawladda dadka Soomaalida oo dhan ay maaratay ay ku dhantahay marka ani waxay la tahay muxuu cabsoon laayahay wuxuu aaminsan yahay inuu xooliyahayo arinta ugu dambeysay muxuu cabsoon laayahay wax weeyaan wuxuu isleeyahay taana waxaan madaxweynaha ayaa baray mujtamaca reer galbeedka waa la dhageystaa waa la wataa waxaaga weliga aqbalin Ismaaciil taa aad buu yaqaanaa iminkaan soo qabanayna dantaadana waxay ku weydiistaan hoosta ka sii laakiin shaqada la wado ya marka ninkani taas buu qaatay iminkaan qodob aan hadayta markaan hadlaynay aan dhag ka siinay qofkii fahmaye oon niri caamil baa maqan taa laftirkeeda ma tahay waxyaabo isku hadlaynaya caamil maraan niri مثلا معارضك iyo aan ka hadlaynay dagaalka wuxuu u dhici waayay sidii la rabay isku halayntiisa si yarban waxaan u niri waxa jira oo asaga inuu kelmad cajiiba jirta daraadeeda kelmad cajiiba jirta ana waxaan idhi kelmadda uu yiri dad baa ka naxay kelmadda uu yiri shariifku oo ahayd haddii hal rasaasa la igu soo rido waan ka jawaabaya ama hal baalad haddaan haysto waan isticmaalaya anigu nin cabsada ma ihi nin loo hanjabana ma ihi aniga waxaan idhi odaygu wuxuu soo ceshay miisaankii siyaasadda dad baa idhi war odaygu buu dagaalamayaa may baa idhi sheekhu wuxuu soo ceshay
miisaankii siyaasadda siyaasaddu miisaan bay leedahay ninka kula dagaalamaya hadduu power kuu sheegto waa inaad power u sheegatid yes hadduu kuu hanjabo waa inaad hanjabtid hadduu isha kuu geeyo waa inaad isha giirtid inta aad leedahay awood waa inaad isticmaashid gartay tiibu isticmaalay adigu waad garan soo maaha waxayna ahayd istaraatiiji istaraatiiji bay ahayd sax midda labaad waxa weeyaan wuxuu sheegay magaaladan barwaaqada uu ku fadhiyo xasan sheekh inuu isagu soo dhisay xaqiiqana weeyaan shariifku magaaladan maxaakimtii buu kaga soo qabtay dadkii nadiifiyey weeye weliba sababka ninka la dagaalamay sida wax walba hagaajiyey daacadda asagu ahaa midda saddexaad waxa weeye shariifka anigu maalin dhaweyt waxaan ka fikiray iidhana uma aha laakiin waan ka fikiray waxaan ka fikiray in la sameeyo majlis la yidhahdo xukamaa u soomaal haye majlisu xukamaa u soomaal haye dadka soomaalida caqliga leh turkigu way leeyihiin israa'iil baa xitaa leh sax iiraan baa leh waxaa lagu ururiyaa maanka iyo maskaxda iyo odayaasha hadduu madaxweyne noqon waayo oo nasiibkubu weysiiyo ha hadduu uu maaragtay saasoo noqdo odaygan waa in laga dhigo ra-iisu majlisu xukamaa soomaal waa nin isku wad leh yes waxaana arkaya weyaan wadaadda warala ah geysina wadaad warala ah weliba wadaadnimadiisu dadku ma yaqaanaane labay wadataa sax waxay wadataa suufinimo haye iyo wax wadataa xarakinimo oo Soomaali wax ka maqan ba male labada un bay wax ka maqan male waa nin taqliidi oo ku soo bartay dhaqanka iyo- jaamicaddii akaademiga Suudaan iyo Liibiya tagay yes waa nin maaragtay waa nin badan ninku marka dadka noocaas ah maaragtay waa kanz ummaddu ay leedahay asad waa kayd raasamaal waa rasamaal marka isaga saacid dad waxaa jira isku wada leh oo dadka isku wadi kara dadka noocaasa waxaa dadka layskama caytamoon mogtahay ya marka saas baan leeyahay maaragtay waa taas baa gartay sheekhana adiga shakhsiyan sheekh cabdiraxmaan bashiir ahaan maxaad u aragtaa xal se maxaad baaq u soo jeedin lahayd labada dhinacba okay horta sheekhow siyaasaddu waxay u baahan tahay nin siyaasi ah siyaasaddu waxay u baahan tahay nin siyaasi nin siyaasi ah siyaasaddu haddana waxay u baahan tahay culture siyaasadeed siyaasaddu haddana mar saddexaad waxay u baahan tahay koox siyaasadeed yes ya aniga waxaan leeyahay nin xasan ma aha nin siyaasi ah ma run mise been xasan nin siyaasi ah maanta ma aha xasan uu ahaan jira nin siyaasi ah gartay laakiin way ka dhamaatay xasan maanta siyaasi ma maaha siyaasi maaha ninka siyaasiga ah wuxuu leeyahay saqaafad sheekhow Eh, ninka siyaasigii wuxuu eegaa dhowr shay ninka siyaasigii wuxuu eegaa waxa loo yaqaano dhacdada wuxuu eegaa se u dhacayso se u dhacayso eegaa gartay waxaa socon karaya miisku saaraa wixii socon karaya socodsiiye waxaan socon karin ma socodsiiyo soomaaliya juqraafigeega laguma qaldamo soomaaliya jabuuti maaha gartay soomaaliya ugandha maaha soomaaliya eritrea maaha soomaaliya etoobiya maaha xataa soomaaliya koonfurta soomaaliya ma aha maaragtay puntland muqdisho xataa ma aha soomaaliya maxaan ku dhahdaa somaliland maaha way ka duwan tahay kala duwanaanshaha dhaqameed ee dadka waa in la waa in la eego contextiga iyo meeshan lama kala adko haddaad tiraahdid waan ka adkaan waa laga adkaan waa la soo jaribay reer yar ma yaqaaniin soomaalidu reer weynna ma yaqaanaan soomaalida muhiim uma aha dowladdu waxaa u muhiima deganaanshaha soomaalida muhiim maaha reer waxaa muhiim u ah qabiilka dowladdu muhiim aha marka meesha aad joogtid garo sida aad u garan lahayd baad u shaqay haddaba gartay marka taas waa midda kooda yaan kow midda labaad anuu aan isleeyahay waa xal bay noqonaysaa wax weeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay miiska in la yimaado gartay labadan dhinac waa inay miiska kusoo laamaan miiskana lagu dhameeya xalkeega miisku maxay weyaan maxamuud miisku waa maxay miisku waa xalka soomaaliya ugu dambeeya weyaan lama kala adkaanayo lamana kala adkaan doono maxaa markaa xala wada hadal miiska waxaa loo yaqaana fiqu tanaasul waa in laisku tanaasulo mid saddexaad maxamuudo midda saddexaadi waxa weeye soomaaliya waxaa masruufa ajaanib
boqolkiiba 60 waxa la cunayo wadanka dibadda ka imata mishaaradu dibadda ka imata waxaan rabnaa in aanan wadankani aan laga dhigin inuu noqdo boqolkiiba 60 ka la gooyo oo ay gaajooyinka dhici jiray adiga markaa madaxweynaha tahay arrintaa iska ilaali arrinta afraad ee ugu dambayso aan xalaan u arkay wax weeyaan madaxweynaha waajib ku tahay madaxweynuhu maanta 70 jir buu dhaafay 70 sano buu dhaafay soo ma labo madaxweynuhu maanta 2 goor uu madaxweyne noqday waxay madaxweynta u garanaya madaxweynuhu maanta uu og yahay awoodda xamar taala inta ay leegtahay inuuna waan soo maartay dhamaynaya arrinta shariifka inuu waxba ku dhamaanin waa la sii qaadnaa dagaalku hadduu dhaco baadiyu tagay mii baa laysku marinay oo reerkan walaalaha ah reerka qorataas marin doona marka aniga waxaan leeyahay marxaladihii adduunka ma aha waa marxaladii ku imaamadleyda odayaasha dadka caqliga u saaxiiba odayaasha beesha hawiyo oo dhan waxaan leeyahay waar maanta waxa ini saaran waajib ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay niga sugayso oo ah in aan noqon Soomaali waxay ka digi laadahay Muqdisho nagarara in la oran Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya waa Qaahiro weeyaan Ilaahay baa nidajiyay halkeena keenay taala waa inaad si degdeg u gashaan madaxweynaha geedka ka soo dhaadhiciya maxaa loo oran jiray Netanyahu barkii Gaza geed buu kursiga soo dhaadhiciya laga soo dejiyaa mucaaradkana geedka ka soo dhaadhiciya fiqu tanaasul isku tanaasul kartay meel dhaxal isku yimaado meel dhaxal maxay noqonaysaa war 6 bilood baan ugu darnay odayga intaana maxaa yiraahdaa doorasho la isla ogol yahay dhacdo ma hata isagu wato ma hata mucaaradku wataan tul isla ogol yahay oo sidee noqonaysaa la isla dejiyo labo waxa weeyaan ilaa laga sheekaysto mustaqbalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo la dhameeyo waxaan soo noqonaya inuu la soo noqon sida ay reer Puntland ay sameeyeen oo ah inay maalinta doorashada loogu talagalay ay dhacdo una hal yoom lagu darsan karin waa inay dhamaato taana waa in xal loo keeno arrin saddexaad ee ugu dambaysa wax weeyaan waa in la qoro wasiiqad heshiis mucaahado dhaar ah oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhaartaan ayna ummadda horteeda la yimaadaan in aynan maalina ku darsanin maalina ku birsanin baashana la wareejinayo ilaa laga gaadhayo nin iyo codkii lagana wada shaqeeyo ana saas halka warka sheekh okay marka aan leenahay mustaqbalkan cabsi xasan muxuu cabsan leeyahay markay Mareykanku ay la soo xiriireen waxa kale oo inaan ku darnaa oo muhiim ah in uu ogolaaday oo uu hadli doono galabta uu sheegi doono inuu ogol yahay heshiiska taasna waa la hadlayaa marka adkeentuna way jirtaa nabad inuu ku baaqana oo ku qasbaya maxaa yeelay miisaanka ayaa keensanaya magaalada xamarka jira markaasaas dooq kala badan oo soo harayna ma jira insha Allah sheekhana talooyin aad u qiimo badan baad soo jeedisay si Soomaalinimo iyo aqoon iyo fikir iyo falanqayn iyo wax walba ay ku dheehan tahay intaas ayadoo soo jeediyay haddana is ogtahay maantay sidii oday Soomaaliyeed in uu labisanta جزاك الله خير هذا سومالي بالي وجعلها معوشته يساتن ان يوروب بان جوغنا امريكان oo laga qaato laakiin marka uu soo galo kuleeluhu waan qaataa anigu anoo muujinaya inaan ahay in Soomaaliya kuna faanaya dhaqanka ummadda Soomaaliyeed shukran jaziilan lak